الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، waxaan ku jirnaa bishii Shacbaan ee ka horeysay bisha Ramadaan. waqti walba iyo xilli walbana wuxuu leeyahay cibaadaad munaasab ah oo nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi ka sugan ama si guud ama si gaar ah. bishan cibaadaad fara badan bilihii kale kula mid tahay, laakiin nabigeenu salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa uu si gooniye ugu khaas yeeli jiray inuu soonka badiyo, bishan inuu soonkeeda badiyo. Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anhuma, ma arkin nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo bisha Shacbaan soonka uu soomayo bil kale soomaya ma arkin. soonka ugu badan ee sunnaha ah bisha Shacbaan buu nabi Muhammad soomi jiray bay tiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. xadiidka riwaayo kale oo tiisa waxay leedahay Aisha radiyallahu ta'ala anhuma, nabigu bisha Shacbaan oo dhan waa wada soomi jiray. riwaayo kalena waxay leedahay Shacbaan oo dhan buu soomi jiray in yar mooyee, wax yar ayuu afuri jiray, inteeda badanna waa soomi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam. xadiid kale oo Aisha ay warinayso sunan Abi Daawud ku yimidna waxay leedahay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bisha uu ugu jecel yahay inuu soomo Shacbaan bay ahaan jirtay. soonka uu soomo yahay bisha Shacbaanna wuxuu ku xiriirin jiray soonka bisha Ramadaan. caaday u ahayd nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. marka waxa haboon bishan in la badiyo soonka, لأن سيدة النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه هذا أركته إسقى عبادة ملك خاص يليه، أما وقت يدا كم إذا عبادة خاص يليه، أما طول كمل كم إذا عبادة خاص يليه، حلقة أما طول كاس عبادة دا علاقة خاصة كدحيس. حكمة باكو شرطة ما شرطة وحلي إلى هذا شارعة الله تبارك وتعالى رسول كيس صلوات ربي والسلام عليه إني وقت عبادة إسلاف في رصدان، أما مال يبقع عبادة إسلاف في رصدان وإسكت عضو. حكمة الآن ما شرط، حكمة باكو شرط وبيشن واحد لو صومي والنبي قصون كأوبدين شري صلوات ربي والسلام عليه. حكمة باكو شرط، حكمة دا قار كم إذا النبي قاتل المامي صلوات ربي والسلام عليه وعائشة وحي ويديس رسول الله يو بيشن محاد صون كأوبدي ساعة. wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bishani waa bil ay dadku moog yihiin oo halmaansan yihiin ilaahay cibaadadiisa. laba bilood bay u dhaxaysaa. bisha Rajab leeyda oo ashhurul hurum ka kamida, afarta bilood ee xurmada leh goonida ah bay kamid tahay, iyo bisha Ramadaan oo bishii soonka iyo cibaadaadka ah. labada bilood oo bilaha xurmada leh kamid tahay, midna ay bishii Ramadaan ba tahay. labada bilood bay u dhaxaysaa, dhexday ka baxdaa. marka dadka badankood iyagoo moog oon kaba warhaynin oo cibaadada Ilaahay iyo taacadiisa halmaansan bay bishu dhaaftaa. sidaas daraadeed baan soonkeeda u badinayaa buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. maxay tilmaamaysaa waqtiga ay dadku cibaadaadka Ilaahay moog yihiin ama ka hurdaan ama ka sii jeedaan, xilligaasoo kale ruuxa cibaadada Ilaahay ku mashquulo adoomada khilaafa oo ghaflada ay ku jiraan garab mara, wuxuu leeyahay mudnaan khaas u leeyahay, ajir siyaada abu leeyahay. maxaa yeelay waa xilli la wada halmaansan yahay, asaga ku baraarugsan oo dadkii ka dhaxbaxay.
وميدا كنتي نصوص فربضان إنay ku timaado oo meel kale gadisan ku timid ruuxa xilliga noocaas oo kala ah cibaadada Ilaahay tabaaraka wa taala in ajir siyaada la siiyo munaan khaasana nabigu siiyo salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa kamida maalan asbaabta jannada lagu galo nabigu wuxuu kamid dhigay salawaatu rabbi wa salaam alayhi dadku markay hurdaan habeenkii oo cid Ilaahay xusaysaba ay yar tahay intaad hurdada ka soo kacdo inaad Ilaahay xusto يا أسباب تجند اللوجا لا لقى بدقي لأنه واحد ضدكو أي هالمنسيه وحكم إذا مثلا نبي قال صلوات ربي والسلام عليه وحوت المامي العبادة في الهرج كهجرة إلي مركي فتنة بعضه ويضدكو إسلينا يا oo kuraas iyo adduunyo iyo jago iyo dhul iyo balaayo la isku laynayo la mashquulo ilaahay cibaadadiisa iyo khayrkana laga kala tago la halmaamo adoonka xilliga cibaadaysanaya ee cibaadada ilaahay ku mashquulsan wuxuu la mid yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidii mid aniga ii soo hijrooday oo kale leesh laana waa xilli dadkii ay aafa iyo balaayo gashay fasaadeen انت عبادة إلهي كبرارك سنة أي يرتهي وهكذا النصوص فربضان باكو إيمانيسا حل قال ليس هالمامو ضدكو سيحدان عبادة موجهين إن عبادة اللغو مشغوله أجر سيادة بإلاده تاوى قدب كوكوبادو النبي كوحي صلى الله عليه وسلم صونك بشن بدين تو بدين شري إلاده الله بادي وحي النبي كوحي صلى الله عليه وسلم وحي بشاني وبش أعماشا كورلوسي قادو الضماد وحي سمينيين سندك طاعاتك خيراتك وحي اللي سميني با كور لغيا او كور لو سي قادا ساس دراديد waxaan jeclahay anigoo sooman in amalkayga la sii qaado ayadana waa sabab kale nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wa salaam alayhi macnaha inoo soo baxay waxa weey nabigeena si aan ugu dayano salawaatu rabbi wa salaam alayhi bishan cidii kari karta soonkeeda habadiso hadigi nabigeena way salawaatu rabbi wa salaam alayhi dariiqiisi arinta labaad ee baraarujinta mudani waxay tahay bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxa dhacda arin weyn arin ajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa taala maxay tahay arintaas wuxuu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaam alayhi habeenka bisha shacbaan ay kala baranto nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa adoomadiisa dhamaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dambi dhaafaa dhamaantood dambigooda waa saamaxa illa laba ruux mooyee ruux mushrik ah oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay wixii ilaahay gooni u lahaa xaqi alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo kaliyeeridiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay kaasi ilaahay marna u dambi dhaafi maayo waatan quraanku tilmaamayo إن الله لا يغفر أن يشرك به الله مردافو إن إساقا يأدومدي سوحل وداتي والله يسوقو دارو إلهي خلق جيسا وحا أقوني دا إن أقول لي حسو والدنب إلهي اللقاقلو كأقويوي الدون كان وحو كينا يا إن الدنب قاقا هبيراتي إلا السامحين آخرنا وحو كينا يا إني جنادو حاران كاتاي نارنا أدكو واريس ساس ترادد مشرك إلهي هبينكا أدن مدافي مايو كاللبادن لو أدن مدافي إني وحويان ومشاحن يا وعقد اللو وحقدي له روح حقدي ينعيب قلبك أقوهيا روح مسلمة أسجن الله رافي ماي وعجيب مشرك جرنا
kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaada u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyay isaga iyo mushrigii baa la isdaba dhig isla isgarab dhigay waa la fogeeyay waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dambiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay adoomadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta ah waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha kaliyana ma ahe munaasabaad fara badan xiqdiga iyo calool xumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu calayhi inuu yidhi maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kasta oo isniin ah acmaasha adoomada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaasaa ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa cid kastoo adoomadiisa ka mid ilaa cid mushrigoo ilaahay adoomadiisa xaqii alle ka dhaxaysiiyey mooye yaa kale nin kalaas isagana aan loo dhaafaynin oo maalinkaasi isagana aan khamiista iyo jumcada marka acmaasha la qaaday aan loo dambi dhaafaynin waa kee wuxuu nabigu sal alayhi wasallam waa ruuxa isaga iyo walaalkiisa muslimka ay ka dhaxaysa shaxnaa xiqdi uu ka dhaxeeyo alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala labadan xiqdiga iyo xumaanta isu haya dibdhiga arrinkooda u kaadiya ilaa ay ka soo heshiiyaan meelo badan baad qadi marka lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay waxaa ka mid a in qalbigaagu saliim yahay qalbigaagu fayow yahay qalbigaagu xaadhan yahay dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow yahay nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh ayaa waxaa la weydiiyey dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahayow wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ruux kasta oo mahmuumul qalbi as-saduuqul lisaan qalbigiisu mahmuum yahay carabkiisuna run badan yahay waxay yiraahdeen garanay midka carabkiisu run badan yahay qalbigiisa mahmuuma maxaa laga wadaa maana fahminan oo cadde wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa laga wadaa huwa at-taqiyyun naqiy wa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay waa sii wada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa midka qalbigiisa aan dambi ku jirin gardarro iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin dhilli iyo khayaana ayna ku jirin xasad uusan qalbigiisa ku jirin kaasa ilaahay adoomada ilaahay ugu fadli badan uguna jecel yahay saas daraadeed haddaad qalbiga xumaan ku hayso xaaladahaasi iyo waqtiyadaasi munaasabka qiimaha badan ee laysa saamaxaya waa laga reebi waad ka hadhaysaa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh saddex bari oo isku xigtay buu saxaabadiisa uu la fadhiyo wuxuu ku yidhi waxaa idiin soo geli doona nin ahlu janno ah saddexdii bariba hal nin baa soo galay ninkii hadday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen war ninkan saddex bari janno looga markhaati kacay xaalkiisu muxuu ah hadday raadiyeen waxaa caddaatay ninkaasi cibaado badan oo uu ragga la dheeryahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad uu saxaabada kale la dheeryahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxaa la helay oo uu sheegay hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya waa midda uu meesha ku gaadhay waay sidaas daraadeed haddaad ilaahay dambi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiif allah tabaaraka wa tacaala mu'miniinta markuu tilmaamayay saddex qaybood buu ka dhigay fi suurati al-hashr qaar waa muhaajiriin qaarna waa ansaar
qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo walladina jaa'u min ba'dihim labada gadaashooda kuwa yimid ee muuminiinta damba ah ee dib ka yimid yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman waxay dhahayaan rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanagii nooga horeeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qalbiga naga allah xiqdiha gelin xiqdi aanu hayno dadka muuminiinta ilaahu qalbiga hanaga gelin marka xiqdi haduu qalbigaaga haysto dib kugu filani waa ku hayaa dib in kugu filani waa ku haysataa aimada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar kamida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka shacbaan ay kala baranto ilaahay waa u dambi dhaafaa adoomadiisa ilaa mushrik iyo mushaahin mooye aimada salafka qaar kamida waxay ku fasireen mushaahinka waxa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam uqdada iyo nacaybka u haya sida imaam awzaa'i alayhi rahmatullah ku fasiray waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn yahay dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi لأنه وحي أهايين أوليادي إلهي دورتي أمد النبي محمد كحشي سابقين تيبي أهايين أرضدي النبي محمد بي أهايين كوي قرآن كأي السنة بلغو أماني لغو تسكيي بي أهايين كوا مركز حقدي يحسد أقاده شك ملها هدادا قال أهين إنا الدنبيلي حق أدوغ فوقيناته معايا الإلهي تبارك وتعالى قرآن كريم كوحو شيء مركو كهل الصحابة النبي هي سيدة النبي أقرب استاجين أحوتشيين أي لنعيها أقجلين ودين تأحوتشيين الله وحده تبارك وتعالى ليغيظ بهم الكفار قال هذا إن لقى حناتيو أعيل لبضه درادت بو الله ساويه نينك حناقصا ciilkii carada u haya saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayada waxa laga qaadanaya inuusan muslim ahayn aymadii salafka qaar kamidana saa u daliishada ridwaanullaahi calayhim sidaas daraadeed saxaabada inaad cuqdo u qaadaay mas'ala sahlan ma aha cuqdada iyo xiqdiga la qaadato ugu culus waxa soo raaca aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim ardadii saxaabadu taabiciintii kuwii ka dambeeyay أئمدي صدحدي قرني علماء المسلمين السنة أتاجنا الدين تفافينيا كوا سأقدر إن حقد يعقد قاضه ضدك كلام مسلمين تجود أهان أيقون وسوق ليا محير النبي قم كلا قاد أنت والصلوات ربي والسلام عليه لكن ويسيك لا علوسته ساس تراد حقدك شيعة الرافضة عيد أي صحابة النبي عايان حقدك أيو قبان علاده أيو قبان نعيبك أيو قبان أيجي أنت الرعسنبا شك ملها إن أي جليان حديث النبي صلوات ربي والسلام عليه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ضد إلهي دور تمركز هذه يقوم مشغول شو شغال كديقته يا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب بأله تبارك وتعالى أولياء الروح لا عليتما أنا قاعد دجال إعلامية هكوت لقى الدجال كيجا صحابة النبي قال نينك كم مشغول سنة لقى كري لا يعني دجال ربي تبارك وتعالى أيو كتشرا نين إلهي دجال لقى لنا الشك ما لها إنه صن مرنا بالرينين أو لقى أتكاني أو إلهي تبارك وتعالى الدنيا آخربه عقابها يو عقوبة الربي عذاب كيسينه هل السكوت مسلمين تمركها كان نبض قلين قلبي جانا أوفر يا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلوكو قدام الدفوادن هذه مصلحة هذه عافيتك سامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا علي سنتور نبقى دريمه يسقر صدب كاغا عرض هذا علي دتك ليسك سامح وعافي ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو كحناقي ننكي مصطح بن أثاثة
يا مركو كحناقي وعائشة دتكي كبين أبورتي كقيب قلي وبين تفافيين أبورتك كدبنا ويري دب دم إننا مصروفين قرابة أهاية إلهي آيات نزودك تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ورمي إذا انشعلين إن إلهي إذين ضافوا إذين سامعوا جوابتوا ها وانشعلنا إلهي أدومدي سامحا عفية قلبك أفرا ونصيحية مسلمين تجعلوا متك قلوا سنة دنبك كلي دنبك سنع لكن إسقها النعل يا دنبك يأهواذا يحمانته لفتهذا لنع لكن شخصك مسلم كان لمنعه لما نكهضه لفيه سوى الروح مسلم عاصبها هذا سيداس درادد دنها الدنيا دقالك كوساب سني ملكو جين ماي حقابا إذن دحمري صح هذه الشحناقة أضوها يسويها الروحاني يعني فكر كأوحا بارسيني باوحو فكر خربا دين أهم بعد هجرته وحو وتي مبدئ إيسا خلدا تاسوا مسألة كلام لكن واحد ضد قال سنتود وحنا سنتود ونعبتها والدنيا كرسي با إذن دحمري حولا إذن دحمري وحوقا با إذن دحمري تاميا شحناقة نوعا سلما أقولا سأسترادين سي أنشانس كان يوقف إذي سنة وهبين ندن إنه قسو آدم ويبش شعبان إنه النس نقطه وهبين ندن إنه قسو آدم قلبك وقتك يرى الله وان انت تكشقيسيسو ظاهري ونظيف ان شاء الله تعالى سي الهي قلبك او ضالعده كدبنا لوو قدام بدافه باذن الله تبارك وتعالى او دوغ من نقطه ددك لا سامحيو هبينك باذن الله صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك